السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale maalin kale iyo muuqaalkan waa muuqaalkii saddexaad ee aan ka sameeynayo weerarada cyber attack loo yaqaano waxa ay yihiin qaabka u shaqeeyaan iyo noocyada u kala baxaan muuqaalkii ugu horeeyay waxaan ka sameeyay malware-iska muuqaalkii labaad waxaan kaga hadlay weerarka loo yaqaano man in the middle attack maantana waxaan isla eegaynaa weerarada loo yaqaano DDoS iyo DDoS balse intaan muuqaalka bilaabin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like aad saarto fikirkaaga commentiga gula wadaagto sidoo kale channelka subscribe dhahdo hadaad hore u tirina aad iyo aad ayaad u mahadsantahay DDoS oo laga soo gaabiyay denial of service iyo DDoS oo isna laga soo gaabiyay distributed denial of service weerarada noocan waxa lagu qaadaa serverada waaweyn ee holaha adag haya sida serverada ku rangareysan yihiin systemyada iyo applicationada waaweyn ee adeegyada bulshada ama e-commerce-ga iyo waxyaabaha la midka loo isticmaalo iyo serverada kale adeegyada kale dheeraadka ah qabta iyadoo markaasi serverka loo dirayo codsiyo aad iyo aad u badan oo memory-ga serverkaasi aanu xamili karin taa oo sababaysa inuu serverka culays badan uu dareemo oo noqdo waxaan la isticmaali karin ama gabi ahaanba uu baqtiyo culays awoodi balse weeraradan qaabka u dhacaan way kala duwan yihiin haddii aan ku horeeyo DDoS-ku waa weerar ka imanaya hal computerkaasi oo per second ma aha minute per second u diraya serverka codsiyo aan kala joogsi lahayn codsiyadaasi oo haddii data loo bedelana noqonaysa GPU haddii aanay terabyte ahayn halka weerarka loo yaqaano DDoS-ku hackerku isku dayi doono ugu horeyn inuu soo afduubto kombiyuutarro daafaha caalamka yaala isla markaana ku xiriirsan internetka kombiyuutaradaas waxay noqon karaan laptopyo mobilo smart TVs-ka iyo aaladaha kale internetka lagu isticmaali karo isla markaana web pages-ka lagu booqan karo iyadoo ciddii kombiyuutaradaasi lahayd aanay waxba ka ogeyn ayuu hackerku daha dabadiisa ka maamuli doonaa balse su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay siduu hackerku ku awoodi karaa in kombiyuutaradaasi soo afduubto haddaa hore usoo daawatay muuqaalkii aan ku sharaxay malware-iska noocyada u kala baxaan sida viruska, trojanka iyo ransomware-ka waxa laga yaabaa inaad si fiican u fahanto hackerku wuxuu samaysan doonaa malware noociisu yahay trojankana sidaan hore usoo sheegay waxa uu awoodo dheeraad ah siin doonaa hackerkii soo samaystay awoodahaas waxa kamid ah in kombiyuutarkaada la maamulo dhaqdhaqaaqaada lala socdo waxyaabo badan oo adiga aadan ogeyn kombiyuutarkaada laga dhex samaysto hackerku markaa isagoo adeegsanaya malware-ka loo yaqaano trojanka ayuu kombiyuutaradaasi maamuli doonaa isla markaana waxa uu ku programin doonaa kombiyuutaradaasi saacad xadidan oo isaga ugu talagalay in isku mar ay codsi u diraan serverkaasi codsiyo aan kala joogsi lahayn u diraan serverkaasi taasoo marka dambena serverka ku sababaysa inuu gebi ahaanba howlgab uu noqdo sababta hackerska u sameeyaan weerarada noocaana ma aha in ay madax furasho weydiistaan shirkadaha serverada iska leh balse waxa weeyaan in serverada shirkadaasi iyo adeegyadeedaba la baabi'iyo ama ugu yaraan saacado kooban hawada laga saaro si shirkadaasi macaamiisheeda khalkhal loogu abuuro ama kalsooni darro loogu abuuro weerarada noocan oo kale waa adeegyo caadiya oo shirkaduhu ay soo kireysan karaan badanaa waxa isku adeegsada shirkadaha tartanka uu ka dhaxeeyo tusaale ahaan shirkad suuqa hore u haysatay haddii ay aragto shirkado yaryar oo suuqa markaas soo galaya oo laga yaabo inay kula tartamayaan waxa laga yaabaa inay usoo kireysato weerarada noocan oo kale oo ay ku baabi'iso ama ugu yaraan sumcaddooda ay ku dhaawacdo shirkadaha weerarka noocan oo kale lagu qaaday aad ay u badan yihiin waxaana ka mid ah shabakada aflaanta laga daawado ee Netflix iyadoo hackersku ugu horeyn ay soo afduubteen smart TVs iyo mobilo iyo kombiyuutarro daafaha caalamka yaalay sidaasina ay saxmad ugu abuureen shabakada sidoo kale weeraradan shirkada lagu qaaday waxa ka mid ah Google 2020 ayuu Google lagu qaaday weerarada noocan oo kale iyadoo dalalka qaar laga dareemay culays aad u baahsan oo ku yimid adeegyada Google-ka sidoo kale systemyada weerarkan lagu qaaday waxaa ka mid ahaa GitHub haddaadan aqoon u lahayn waa platform ay aad u isticmaalaan programmerska iyo shirkadaha software development-ka ka shaqeeya sidoo kalena programmerada collaboration wax la yiraahdo ay ku samayn karaan platformkaasi ayaa 2018 lagu soo qaaday weerarka noocan oo kale iyadoo daqiiqado kooban uu hawada ka maqnaa muuqaalkan maanta intaas ayaan kusoo koobayaa muuqaalkan xigeentan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo